walaalaheen carabta waxaan weydiisanay in ay dadka Soomaaliyeed garab istaagaan waqtigan muxuu ahaay aad iyo aad u ciriiriga oo dhibka badan sidii aan uga baranay horeba inay u garab istaagaan waxaan warbixin laga siiyay duruufaha maanta jira dadka Soomaaliyeed iyo sida ay abaartu u taabatay iyo dadka inta maanta degdeg ahaan ugu baahan gurmadka degdega ah iyo inta mustaqbalka soo socda u sii baahnaan doonto dadka Soomaaliyeed kii ganacsada ana ha u diyaar garoobo ayadoo marka ugu dambayso qofka Soomaaliga rubac sokorta gadanayo oo bixin doono haddana ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay fududeeyaan arrintaas aad iyo aadna ay ugu dhagan dadka Soomaaliyeed ardayda jaamacadaha dhigata markale waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan abaaraha ardayda dugsiyada dhigata sidoo kale waxaan markale ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan gurmadka degdega ee abaaraha shirkadaha Soomaaliyeed ee private-ka ganacsatada ah iyo shaqaalaha u shaqeeyaba ayagana waxaan ugu baaqaynaa in ay ka qayb qaataan arrimahaas gurmadka degdega ah dhammaanna cid walba wixii ay heli karto in ay soo gaarsiiso guddiga qaran ee abaaraha oo loo doortay in ay dadka laguna amaaneeyay in ay dadka Soomaaliyeed sida ay u kala daran yihiin wax u kala gaarsiiyaan waqti ku habboon waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan walaalaha inaan ugu baaqo waqtigu waa wax weyn qofka noloshiisa Ilaahay yaa haya laakiin qof aad maanta biyo sii kartay yaanu biyo la'aan u dhimanin biri biyaha keenin dawladda Soomaaliya intii karaankeeda ah ay dhaqaaqi doontaa dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dakhliga dawladda meelaha uu ka yimaado dhan cashuuraha ay ka mid tahay dekadaha oo ay ka mid tahay garoomada diyaaradaha oo ay ka mid tahay maxaan ku raadayay cashuuraha bariga meel walba dawladdu waxay saari doontaa tiro kooban oo maxaan ku raadayay lacag ah oo dheeri ah oo lacagtaas oo si toos loogu wareeji doono guddiga qaran ee loo aasaasay abaaraha oo ay dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan sida ay u kala daran yihiin loogu qaybin doono loona gaarsiin doono